faa'iidooyinka akhrisku u leeyahay carruurta. caadaysiga akhrisku waxa uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo dhinaca nafsadda iyo maskaxda ah. waxa aanu kobciyaa aqoonta, fahamka, maskax furnaanta iyo ildheeraanta qofka. sidaas awgeed ma jirto dabeecad ka fiican in waalidku uu ilmihiisu inta uu yar yahay ku barbaariyo wax akhriska. xeeldheerayaashu waxa ay sheegayaan in wax akhriska uu ilmuhu ka helo faa'iidooyin caafimaad oo ay ka mid yihiin: wax akhrisku waxa uu xoojiyaa shakhsiyadda ilmaha. 2 akhrisku waxa uu tababar, jimicsi iyo dhisid u yahay maskaxda ilmaha, taas oo aad uga badan faa'iidada uu ilmuhu ka helayo daawashada. 3 wax akhrisku waxa uu furaa maskaxda ilmaha, waxa aanu faham ka siiyaa waxa ka socda adduunyada ku xeeran. 4 wax akhrisku waxa uu wanaajiyaa fiirsiga iyo dhugmada ilmaha. 5 wax akhrisku waxa uu koriyaa khayaalka maskaxeed ee ilmaha iyo awoodda uu u leeyahay in uu xaaladaha iyo arrimaha sawirto. 6 wax akhrisku waxa uu kobciyaa awoodda luuqadeed ee ilmaha, waxa aanu wanaajiya isticmaalkiisa ereyada afka. 7 wax akhrisku waxa uu caawiyaa koritaanka caadifadda iyo dareenka ilmaha. sababaha waxaa ka mid ah xidhiidhka dareen ee inta badan ilmaha iyo shakhsiyaadka qisaska uu akhriyayo dhexmara, isaga oo la wadaaga farxadda, cadhada, warwarka iyo dareennada kale ee la midka ah. 8 wax akhrisku waa madadaalo fiican oo ilmuhu isku dhaafin karo daalka iyo wehel la'aanta. 9 wax akhrisku waxa uu dhisaa aadna u xoojiyaa awoodda waxbarasho ee ilmaha iyo gudashada waajibaadkiisa dugsiga. waxaana inta badan lagu arkaa in ay ku fiicnaadaan guud ahaan maadooyinka uu baranayo.